بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bishii 18 December waxa magaalada Garoowe nagu soo booqday wafdi uu hogaaminayo SRSG-ga iyo EU delegate African Union and IGAD waxaan halka kula yeelanay kulan madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada qayb ka mid ah waxaan runtii uga mahadcelinaynaa kulankan maanta qabsoomay oo aan uga hadlaynay dhowr arrimood oo xuseeya dhinaca horumarka la rabo in laga gaaro siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha wuxuu ahaa kulan aad u wanaagsan oo aragtiyo badan aan isku weydaarsanay sidii loo dardargelin lahaa horumarna looga samayn lahaa arrimaha hortaagan in ay dawladdu Soomaaliya ay hore u dhaqaaqdo runtii waan uga mahadcelinaynaa kulankaas wada hadaladii waxay ku soo dhamaadeen si wanaagsan oo ugu horeyso sidii loo dardargelin lahaa xiriirka ka dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah Dawladda Federalka oo aan rajeynayno in ay maalmaha soo socday waqtiyada soo socda ay dhici doonto kulamo intaan kasii ballaaran oo lagu gaari doono sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorashooyinka 2021 dhici doona sidoo kale waxaan si fiican uga wada hadalnay arrimaha ku saabsan dayn cafiska Soomaaliya iyagoo meel aad wanaagsan maraya iyo arrimaha amniga iyo sidii horumar looga gaari lahaa dhammaan qodobadii iyo arrimihii aan ka wada hadalnay runtii waxay ku dhaceen jawi wanaagsan oo aan rajeynayno inay qayb ku kordhin doonto dadaalka loogu jiro sidii Soomaaliya dawlad dhiskeeda hore loogu sii ambaqaadi lahaa waan uga mahadcelinayaa wafdiga oo runtii inta ay nala joogaan kulamo kale aan la yeelan doono qaybo ka mid ah bulshada arrimaha siyaasadda dadka siyaasadda iyo bulshada rayidka aba ujeedadoodan ay tahay inay ururiyaan sidii khaasatan doorashooyinka soo socota iyo qaabka lagu geli doono ay muhiimad gaar ah siinayaan waxaan halka ka cadeynaynaa Puntland inay diyaar u tahay wax kasta oo Soomaaliya danaheeda looga hadlayo iyo arrin kasta oo horumarka siyaasadda ee Soomaaliya gacan loo aan uga geysan karno aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo koobay. Good afternoon and greetings to all. We are here as a delegation of key multilateral partners, including the African Union, the European Union, the Intergovernmental Authority on Development, and the United Nations. This is the last stop in the federal member states of a series of consultations we have held with both national authorities as well as leaders and political figures and civil society groups from all of the federal member states. The purpose of these consultations is to ensure that as we reach the end of 2019 and prepare for a very important year for Somalia in 2020, that we have a good understanding of the key leaders and stakeholders' views on critical priorities for 2020. These include national elections, they include constitutional reform, they include security reforms and measures to intensify the campaign against Al-Shabaab. They include the need for further advances in public financial management and particularly achieving decision point and implementation of debt relief. And finally, of course, we are discussing the development agenda and the desire for a set of activities to support growth, economic progress, and basic needs, including health, education, and the like, of all Somalis. In addition to discussing and seeking the views of the authorities here in Garoowe, Puntland, we are also discussing ways in which further consensus and agreement could be reached in moving forward on critical milestones in 2020.
This would entail efforts to ensure good communication between the executive and the legislature, between the federal government and federal member states, between current political leaders and other political actors in the country, as well as, of course, ways to communicate and interact with community leaders, civil society, and other representatives of the Somali people. We've had a rich exchange with the authorities. We will continue those discussions here in Puntland with civil society and political actors, then return to Mogadishu to continue to exchange with national authorities in the coming days. Thank you very much. All right. Thank you, Mr. President. Thank you.